maayarka degmada Laascaanood Cabdicasiis Xuseen Maxamed oo wehelinayeen xogayaha fulinta dowladda hoose qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ayaa ku wareejiyay wasiirka howlaha guud ee dhulka qadar lacageed ay ugu talagaleen inay kala qayb qaataan mashruuca dib u soo celinta bilicda magaalada Laascaanood ee Tombaleenka waxaana munaasabadaas kooban lagu qabtay hotel Mustaqbal kaas oo ka soo qayb galeen wasiirada horumarinta biyaha howlaha guud iyo wasiirka xigeenka warfaafinta waxaana ugu horeyn halkaas ka hadlay mas'uuliyiinta dowladda hoose ee ugu horeeyay maayarka degmada Laascaanood Cabdicasiis Xuseen Maxamed wasiirka horumarinta biyaha iyo wasiirka howlaha guud iyo dhulka ayaa u mahad celiyay mas'uuliyiinta dowladda hoose ee degmada Laascaanood si ay uga qayb qaataan mashaariicda horumarineed ee ay degmada ka fulinayaan waxaana hadaladoodii ka mid ah waxaan ku wareejinaynaa wasiirka wasaaradda howlaha guud Cabdirashiid Ducaale Qambi lacagtii qaaraanka ahayd ee ugu tala gashay dowladda hoose degmada Laascaanood ka qayb qaadashada master baleenka laga sameeyay magaalada Laascaanood waxaa halkan aanu ku wareejinaynaa lacagtii aanu kaga qayb qaadan lahayn master baleenka ama Tombaleenka degmada Laascaanood oo uu filinayo wasiirka howlaha guud iyo dowladda hoose degmada Laascaanood waxaan u mahad celinaynaa wasiirka howlaha guud oo runtii waxa weeyaan arinta Laascaanood Tombaleenka jid weyn geliyay waxa maanta farxad noo ah xafladan aan ku wareejinayno qaaraankii dowladda hoose ee degmada Laascaanood ay ugu tala gashay inay kaga qayb qaadato master baleenka magaalada Laascaanood kaas oo wax weyn ka tari doona xagga ganacsiga xagga bilicda xagga nabadgelyada in magaaladu ay magaalooyin kale la standard noqoto oo la helo design magaalada afarta koone waa laga sameeyay hadii la haydno master baleenka gudaha iyo dibadda uu ku jira dadweynaha reer Laascaanood waxaan leeyahay saad hore noola shaqeyn jirteen noola shaqeeya waxaan kaloo mahadnaqayaa wasiirada halkan xafladda nagala soo qayb galay wasiirka horumarinta biyaha Saleemaan Yuusuf Cali Koore wasiirka xigeenka howlaha guud Cabdirashiid Ducaale wasiirka xigeenka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta محمد موسى بس iyo madaxweynaha Soomaaliland oo mashruucan laantii aan socdeen iyo wasiirka howlaha guud Cabdirashiid Ducaale Qambi saada socotaan dowladda hoose waagii hore waxa ku shaqeyn jirtay waxa laado waxan waa bisliye hooyo cun maanta waxaan ku shaqeynaynaa waa iskarabsi qodobun baan oranayaa waa la yiri waxa leeyahay dowladda hoose ee degmada Laascaanood waa inay u diyaar garowdo tartan ay la tartamayso meeyarada kale ee dalka dowladda dhexe xudud kasta iyo qaab kasta oo aad ku urursan karto cashuurta dalka diyaar bay kula tahay guud ahaan hawshan aan joogno kaligay mas'uul kama yahay wasiirada halkan jooga gobolka fadhiya guud ahaan mas'uul baan ugu wadanahay inaanu hawshan wixii aanu ka qaban lahayn ee dadweynaha kaga biirin lahayn ku biirino waxaan halkan uga mahadnaqayaa dowladda hoose ee Laascaanood oo xildhibaanadeeda guud ahaan intay leeyihiin 22 koodba ay hawshan si gobonimo loogu waafaqeen inay waxay nagala qabanayaan nagala qabtaan Farxaan Maxamed Caydiid Somali Cable TV magaalada Laascaanood